wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa sheegay inuu amray howlgal militari oo ka dhan ah gobolka Tigray ee waqooyiga dalkaasi. Arrintan ayaa daba socotay kadib weerar la sheegay in ciidamada deegaankaasi ay ku qaadeen saldhig uu leeyahay militariga Itoobiya. Abiy ayaa ku eedeeyay xisbiga TPLF inuu fuliyay weerarkaas. Xiisad siyaasadeed ayaa bilihii la soo dhaafay u dhaxaysay maamulka Tigray iyo xukuumadda Addis Ababa. Faarax Lamaane ayaa faafahinta warkaasi inoo haya. Mr. Abiy ayaa waxa uu ku eedeeyay xisbul xaakimka dawlad deegaanka Tigreega in weerar ay ku qaadeen saldhig military waxaana saldhigga ku dhintay sida la sheegay tiro askar ah waa sida dawladdu ay sheegtay ayadoo hantina ay ku burburtay. muddo 6 bilood ah ayaa xaalad degdeg ah waxa lagu soo rogay gobolka Tigray waxaana hadal qoraal oo la soo saaray lagu sheegay in xaaladdu ay gaartay heer aysan kontrooli karin hay'adaha amniga. gobolka Tigray waxa kale oo laga jaray telefoonka iyo internetka. Mr. Abiy Ahmed waxa kale oo uu sheegay in kooxihii weerarka qaaday ay isku dayeen inay boobaan hanti uu militarigu lahaa weerarkii subaxnimada Arbacada waxaana uu inta ku daray in laga talaabay waa sida uu hadalka u dhigay khad cas laguna qasbay xukuumaddu inay gasho dagaal militari. talaadadii shalay ahaydna baarlamaanka federaalka ee Itoobiya ayaa waxa uu soo jeediyay in xisbiga TPLF lagu daro liiska argagixisada. isniintiina madaxweynaha gobolka Tigreega Debretsion Gebremichael waxa uu warfidiyeenka u sheegay in xukuumaddu ay weerar ku soo tahay isagoo inta ku daray in loo ciqaabayo bacdama ay ayagu doorashadoodii baarlamaanka qabsadeen bishii September ayagoo go'aanadii xukuumadda iyo guddiga doorashada ee ahaa in doorashooyinka oo dhan dib loo dhigo sida ku diiday. maamulka Tigreegu waxa uu sheegay in uu jiro dhaqdhaqaaqa gaadiidka militariga gobolkana laga xiray dhinaca cirka. Tigreega ayaa awoodda siyaasadda ee Itoobiya ay gacanta ugu jirtay intii u dhaxaysay 1991 ilaa iyo sanadkii 2018 markaas oo uu xukunka qabtay Abiy Ahmed waxaana Abiy oo sanadkii hore ku guuleystay abaalmarinta caalamiga ee nabadda ee Nobel Peace Prize loo yaqaano ay dadka dhaliila ku tilmaamaan nin xabsiga ku gura dadka xukuumaddiisa ka soo horjeeda. Mahadsanid Faarax.